marka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan noloba adduunka aad joogtaan mar kale waxaan idin leeyahay caawa habeen jimco ah waxaan rabaa inaan idin la wadaago barnaamij wanaagsan barnaamijkaas oo ah wacyigelinta islaamka kaasoo ka hadlayo noloshii nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam noloshiisa inaan wax ka ogaana ayaan rabnaa aan wax ka baran wax aan isku faa'iideyno asigoo dhan noloshii dhan waxa waaye wax badan kulli ma la dhihi karo laakiinse si adin ku fahantid anagan ilaahay nagu fahansii ayaan rabnaa inaan isku fahansiino kiskis calaashaan kiskis micnaa si aad u fahantid waqti yar oo kooban anagana saan ugu fahano marka waxaan rabnaa inaan caawa aan bilaabno caawa jimco ah waxaan bilaabeynaa noloshii nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam adigana kusoo dhawaynaa waayo wax maala yacni intaan sheekay lahayn wax maala yacni aan idin sheekay lahaa idinkani oo aadan dan idin jirin aniga dan idin jirin marka waxaan danaystay mise waxaan go'aansaday inaan wax diinta ku saabsan wax nabigeena calayhi salaatu wasalaam noloshiisa waxyaabaha diinta oo dhan inaan isku wada faa'iideyno idinkan aaway faa'iideysan meeshii waxyaabo maala yacni aan sheekaysan lahayn marka waxaan idin soo dhaweynayaa nolosha nabigeena calayhi salaatu wasalaam eedoo kooban marka inta ilaahay waafajiya ayaan isfaa'iideynaynaa soo dhawaada marka cashirkeena ayaan bilaabeynaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam noloshiisa ayaan ka sheekeynaynaa awalan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhashtay magaalada la dhaho makka ee sacuudi carabiya uu ku dhashtay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam gaar ahaan makka ayuu ku dhashtay wuxuu dhashtay 12-ka rabiicul awwal mawlid bisha mawlid aan u naqaano 12-keeda ayuu dhashtay nabiga calayhi salaatu wasalaam magaciisa oo kaamil ah waxa waaye maxamed bin cabdullah bin cabdilmutalib marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhashtay makka wuxuu ka dhashtay qabiilka la dhaho quraysh wuxuu ku dhashtay sacuudi carabiya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhashtay awoonnimo waayo asagoo hooyadiis calooshiisa isagoo ku jiro ayuu aabihiisa geeriyooday nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aabihiisa ma arkin weligiis muusan arkin marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hooyadiis waxaa la dhahaa magaceeda aamina bintu wahab waxay kasoo jeedaa eedan qabiilkaas quraysh ayay kasoo jeedaa marka nabi calayhi salaatu wasalaam hooyadiis waxaa la aamina bintu wahab waxaa kaloo soo labeys hooyadiis ka labaad wanaaska soo siis waxaa la dhahaa magaceeda xaliimatu sacdiya nabi calayhi salaatu wasalaam awoonnimo ayuu kusoo koray asigoo 6 sano jiro ayaa haddana hooyadiisa dhimatay haddana waxaa kafaalo qaaday markii hooyadiis dhimatay haddana kafaaladiisa waxaa qaaday awoobihiisa oo la dhahay cabdilmutalib awoogihiisa ayaa kafaal qaaday xilligaas awoogihiisa ayaa noolay awoogihiisa ayaa kafaal qaaday markii hooyadiisa ay dhimatay markii nabiga calayhi salaatu wasalaam 8 sano soo jiro haddana awoogihiisa ayaa dhintay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam yaraantiisa murugo badan ayuu dareemay alxamdulilah taasna wax xagga rabbi ugu qornayd ay ahayd taasna rabbi ayaa u qoray alxamdulilah marka awoobihiisa dhintay kadibna waxaa kafaal qaaday adeerkiisa oo magaciisa la dhahayo abi talib ayaa kafaal qaaday ayaa gurigiisa geystay asiga ayaa barbaariyay wiilashiisa ayuu ku dhex daray wiilkiisii walaalkiisii inuu dhalay camal ayuu la dhaqmaayay si wanaagsan ayuu la dhaqmaayay marka meesha ayuu kusoo barbaaray maasha Allah kusoo weynaaday markuu soo weynaaday 20 jir camal markuu noqday maxamed al-amiin ayaa Allah nin saadiq nin run sheegay nin aamin ayuu ahaa marka meesha ayuu noloshii ka jaan qaaday ayuu ka bilaabay asigoo adeerkiisina abi talibna garabkiisa manaya meesha inta ayaa kusoo weynaadan qaybta dambe waxaan ka dhiginaynaa khadiijo nabi calayhi salaatu wasalaam markuu guursanay meeqsan ay jirtay isku barteen marka inta ayaa kusoo weynaaday idinkan wax u faa'iideystiin anagana wax idin faa'iideeyo adduunka kiskis waa marka marka waqti aan siino barashada dhaqanka shariicada islaamka nabigeena calayhi salaatu wasalaamna noloshiisa wax aan ka ogaano waa muhiim marka ilaa iyo dhamaad waa geenina waa balan ayaa idinka qaadan taas insha Allah idinka naqda dadkii wax faa'iideysan lahaay qofkii walaalkaaga ahna khayrka la jeclaa asigan soo dhaweey janalka waa janalkii soo dhaweey asigan soo socdo waa wax adduun aakhir anfaa wax maala yacni inta aan fiirsan lahayn wax maala yacni waqti aan ku dhumin lahayn waxaa ka fiican wax anagan ajarka heleeno adduun aakhirna anfacaayo wax aan baran oo yahay xabiibkeena nabigeena rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam wax la barto wax lagu dhaqmo wax ugu fiican shariicada islaamka marka adduun aakhir oo ku liibaanina maadeen
marka waa habeen jimco ah waxaan idin leeyahay habeenkiin ha idin wacnaado jimcadiin ha idin wacnaato kulunta dambo oo xiiso leh salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah walaalkiina ibraahim kuto waxaan nala socotaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ha ilowin inaa walaalkaa khayrka gaarsiisid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.